xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa saaka kalfadhiga ay yeesheen kaga dooday arrimo ku saabsan dhinaca garsoorka iyagoo sheegay in wax ka bedel xooggan lagu sameeyo dhinaca garsoorka waxay kaloo tilmaameen in ay cabasho xooggan ka jirto cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliland daba xildhibaanadan oo arrinta dood adag ka yeeshay waxa hadaladoodii kamid ahaa dambi baaraha saldhigga jooga kiis uu haysto oo 40 cisho gaaray anaaba waxa weey og xaaladda kadib markii aan arrinka wax ka ogaadayna xeerlaarinta markaan u gudbay bal dambi baaraha inuu u soo gudbiyo faylka qofka waxa weey macnaha la dacweeyay ama dhiban ama maxaan ku la dacweeyay xeerlaarintu awood inay u leedahay inuu waxa weey waliba ku ganaaxo oo kiis ku oogo dambi baaraha saldhigga jooga oo 40 cisho ama bil kiis madaniya haysta ama kiis waxa weey aan ahayn kiis aan cadayn oo waxa weey maxaan ku raadade qofka lagu soo oogay marka arinta noocaasna waxay ku sugmaysaa inagu markaynu ka hadalno ka gol ahaan dadka kale caadiga marka hadlayaan inagu isku mid banihiin taasina waxay ku qurux badnaan lahayd bay ila tahay in laamaha ay khusayso aynu u yeedhno sidii caadiga shaqadeenu ay ahayd waxyaabaha ay dadku ka dayrinayaan ee social media ka baxaya ee ku saabsan garsoorka qalloociisa taa inagu xaq waxaynu ugu leenahay in loo yeedho cid ay khusayso waxna laga weydiiyo arrimahaas markay bateen waxaan kaga baxayaa tala soo jeedin iyo kulli waxa weey awaamirba xubnaha shirgudoonku waxay xaq u leeyihiin wixii ka soo baxa marka qodobkan laga hadlo talaabada ku haboon inay ka qaadaan iyaga inoo soo kulli shirgudoonku gudoomiyaha inoo gudoominaya marka waxa oran lahaa qodobka haddii aynu waxa weey miisaanka saarno qodobka xilis ka saarno amniga wadanku waxyaabo ku sugnaanaya weey maaha Hargeysa caasimadda kaliya laakiin gobolladoo dhan bay arrintaas ka taagan tahay min degmo gobol guud ahaanba wadankeena garsoorku hagaagana amniga hagaagay horta garsoorku wax la garaalay tagana garsoorku wakiil Ilaahay inoo soo rogay Ilaahay baa inoo garqaaday oo garteena inuu tusay caankay tahay waa mudciye madcalay bilad iyo marxaati laguma jira karaba gabigeeda wax galin ka badan markaynu iska daynay ka aynu qaadano dimuqraadiyadda ama qulka xeerarka samaystaan gaaladu si rujiimka Ilaahay baa caanka baday imaka waxa arkaysaa kiisa socday maxaan ku lahaa maalin dhawatan baa yimi kiiskiisu wuxuu socday 15 sano milad iyo maxwal oo ninkaasi wixii meesha uu ku leeyahay waa u dhacaan 3 goor baa lagu dhaariyay niman waxba haysan baa intaas oo dhan ayaa la baalwada وعبد الغني بوس تلفزيون عالمي جوبنيمو هرجيسا